asalaamu calaykum maqaarta meel bajagtiin oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay suuqa ikhbaaradada hata la diiwaan gelinayo Liverpool oo markaan doonaysa inay dib u soo celiyaan Jurgen Klopp xilli sidoo kale tan ay si weyn u raadinayaan Luis Enrique oo leeyahay Paris Saint-Germain kooxaha ugu waaweyn Premier League oo isku haya laacib ka tirsan Borussia Dortmund Man United oo markaan laga dulqaadi karo Elliot Anderson xilli markaan Aubameyang si weyn loogu dagaalamayo United oo markaan lacaga badan dul dhigaysa madaxa Vinicius si ay ula soo sixdaan iyo laacib ka tirsan kooxda RB Leipzig oo markaan kooxaha waaweyn ay ku dagaalamayaan iyo warar kale ayaan eegeynaa haddii muuqaalkeesan oo la garay kanalkana subscribe nasar haddii aan ku bilaabno akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa warar dhowr ayaa la diiwaan gelinayaa tan iyo guul daradii Liverpool ka soo gaartay Nottingham Forest iyo kooxda BFC Eindhoven markaan si weyn waxaa loo falanqeynayaa suurtagalnimada raacdeynta macalinka lagu magacaabo Arne Slot haatan majalada lagu magacaabo Dasan waxay daabacaysaa in Liverpool ay markaan diyaar u yihiin inay dib u soo celiyaan macalinka lagu magacaabo Jurgen Klopp iyaga oo raba markaan inay ka dhigaan inta xil ciyaareedka ka dhiman macalin uu noqdo kooxda kubadda cagta Liverpool waxayna qorsheynayaan in macalinka waqtiga dheer ay raadinayaan ninka lagu magacaabo Luis Enrique markaan in la keeno shaqada xil ciyaareedka soo aadan laakiin haatan qorshuhu wuxuu yahay sida haatan la soo warinayo in kooxda kubadda cagta Liverpool ay markaan rabaan Jurgen Klopp inay ka dhigaan macalin ku meel gaar ah kooxda haatan samata bixiya dhibaatadana ka saara kadibna loo gudbo heerka labaad oo ah in macalin cusub loo soo keeno kooxda ama macalin cusub markaa la keeno qalcadda Anfield haatan Liverpool waxaa la leeyahay waxay dib u soo celinayaan Jurgen Klopp sida shalaytoo xilliyada dambeeta ay daabacayeen majaladaha ugu waaweyn England sidoo kale Liverpool waxay si weyn u raadinayaan macalinka hogaamiye kooxda Paris Saint-Germain ninka lagu magacaabo Luis Enrique oo haatan leeyahay kooxda Paris Saint-Germain kuna guuleysatay tartanka Champions League macalinkan isagu laf ahaantiisa wuxuu rabaa Premier League markaan inuu u soo dhaqaaqo warar badan ayaa ka imaanaya dhanka Faransiiska oo majaladaha ugu waaweyn ee daabacayaan Luis Enrique markaan waxa u gacan taagaysa Liverpool isaguna wuxuu ku dareenayaa inuu markaan leeliyo koox Premier League ah marka Liverpool Jurgen Klopp waxay rabaan in inta xil ciyaareedka ka dhiman ay ku moodaan haddii ninkan la ceeliyo Slot lagu magacaabo laakiinse macalinka loo socdo waa Luis Enrique oo la rabo shaqada Liverpool in loo dhiibo dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City markaan waxay rabaan laacibka lagu magacaabo Elliot Anderson kaasi uu arkaan bedelka laacibka lagu magacaabo Rodri oo markaan la leeyahay bedelkiisa ayaa la goobaya kooxda kubadda cagta Man City markaan diyaar waxay u tahay inay u dhaqaaqaan laacibka lagu magacaabo Elliot Anderson kaasoo Manchester United iyo kooxo kale ay si weyn u doonayaan majaladaha kale Daily Mail iyo Fijis labadaba haatan si wada jir waxay u daabacayaan in kooxda uu hogaamiye macallin Pep Guardiola markaan ay diyaar u tahay inay soo xirigeliyaan wiilka cajiibka ah qalbada dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Nottingham Forest ninka lagu qiimeeyay 100 milyan markaan waxay diyaar u yihiin lacagaha iyo in ka badanba inay ninkan ka soo bixiyaan si ay u helaan bedelka ugu haboon ee laacibka lagu magacaabo Rodri oo ayaamihii ugu dambeeyay dhaawacyo la dhibaatoonayay haatan Elliot Anderson wuxuu noqonayaa mid Manchester City ee haatan ay doonayaan inay ka dulqaadaan kooxda ee isla magaalada Manchester ay ku xifaaltamaan ee United ayaa laacibkan si weyn u baadigoobaysa rabtana inay soo xirigeliyaan xitaa waxay diyaar u yihiin in ay laacibkan si dhaqsi leh ee u soo xirigeliyaan laakiinse kooxdan ma la yiraahdo Man City nimanka Carbeed lacaga badan ay markaan rabaan laacibkan inay ku qarash gareeyaan waxayna rabaan laacibkan inay ka dhigaan bedelka xidiga lagu magacaabo Rodri oo haatan Manchester City si weyn ay suuqa uga baadigoobayaan bedelkiisa dhinaca kale kooxaha ugu waaweyn Premier League Chelsea Arsenal United Liverpool iyo Man City dhammaantood shantan kooxood waxay si weyn u raadinayaan lambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ninka lagu magacaabo Gracie bandhig fiican ayuu haatan ku haystaa qalcadda Signal Park oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund haatan waxaa la warinayaa dhammaan kooxaha ugu waaweyn Premier League lagu daray Barcelona iyo Bayern Munchen xitaa Madrid dhammaan inay laacibkan ay raadinayaan rabaana inay soo xirigeliyaan majaladaha ugu waaweyn Germany haatan waxay daabacayaan in laacibkan markaan loo gacan taagayo xidigana ku darso lacag ku milyan ayaa markaa lagu qiimeynaya wariyo u shaqeeya Dabil iyo majalada kale lagu magacaabo Sky Sport haatan wuxuu shaaca ka qaaday in laacibkan si weyn u baadigoobayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub 5 kooxood kamidana ay ka socdaan dhanka iyo Premier League marka ninkan si weyn ayaa loo raadinaya ninkan markaan waxaa la rabaa in la soo qaado marka Gracie markaan wuxuu noqonayaa laacib si weyn u baadigoobayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub Arsenal oo kale iyagoo Victor Kroos ayaa haatan raadinayaan weeraryahan cusub marka Liverpool sidoo kale Isaac ayaa lacag ka soo bixin haatan Gracie ayaa raadinayaan United Benjamin Sesko ayaa suuqa haatan soo qaadeen haatan waxay raadinayaan xidiga lagu magacaabo Gracie ha ka reebin Chelsea Lamin Dalab ayaa lacag badan ka soo bixiyeen haatan Gracie ayaa raadinayaan waliba
weliba haatan wararka qaarkood soo baxaya waxay sheegeen in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay xiriir la sameeyeen laacibkan oo contact la yeesheen sida majalada lagu magacaabo Catch Office ee daabacayso waxayna diyaar u yihiin in Arsenal iyo Liverpool iyo United iyo kooxaha kale ee City qayb ka tahay ee laacibkan inay ku garaacaan ay doonayaan kooxda oo hogaamiye macallin Enzo Maresca marka kooxda kubadda cagta Chelsea haatan ninkan xiriir ay la sameeyeen weliba qaasa markaan si qaas ay ula hadlinaya laleeyahay sida haata la warinayo xidigana waaba iska raqiisba marka 50 milyan kaliya ayaa lagu qiimeynaya xil ciyaareedkana 10 iyo dhowr kulan oo saftay 9 gool ayuu sii maraya ninka lagu magacaabo Grace marka akhbaaradida ayaa haatan Germany ka imaanaya oo wararka ayaa la daabacaya wiilkan cajiibka ah markan koox badan ayaa isku haya dagaalkiisa si weyn ayaa loogu jira kooxaha waaweyn Premier League iyo dhammaan kuwa qaaradda Yurub ninkan ay Borussia Dortmund ka doonayaan dhinaca kale to Chelsea sidoo kale to dagaal adag waxay ugu jiraan difaaca kooxda kubadda cagta RB Leipzig ninka lagu magacaabo Lukepa Castello Lukepa marka si weyn ayaa loo baadi goobaya xitaa Liverpool ayaa dagaalkiisa qayb ka labadan kooxood ee Premier League ku xifaltama marka si weyn waxay ugu dagaalami doonaan xidiga lagu magacaabo Castello Lukepa oo lacag 80 milyan ku dhow lagu qiimeeyo xidigan haatan Chelsea waxay diyaar u tahay inay soo xirigeliyaan Liverpool sidoo kale waxay rabaan isbedel weyn inay ku sameeyaan difaacooda Liverpool difaaciyo 6 ka badan ayaa diiwaanka ugu jira oo Castello Lukepa Nico Schlottenberg xidiga lagu magacaabo Maguire iyo rag kale ayaa diiwaanka ugu jira kooxda kubadda cagta Liverpool haatan ninkan ayay raadinayaan sidoo kale Chelsea iyaguna waxay rabaan laacibkan markan inay soo xirigeliyaan marka shakadu halka ayaa maraysa Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ninkan lagu magacaabo Castello Lukepa ayaa markan ku wada dagaalamay doonaanba dhinaca kale wararka haatan la helayo qayb waxa ka noqonaya isbuuc iyo barka hor adii 2 isbuuc waxa ku dhadhow waxa la wadaagay in Manchester United 200 milyan lacag ka badan ay ku raadinaysa Vinicius Junior marka haatan shakadu marka la way soo noqotay weekend ay taagan tahay marka nimanka Manchester United ay haatan majalada lagu magacaabo Catch Office waxay daabacaysaa in ka badan 150 milyan lacag gaaray 210 milyan ku dhadhow inay rabaan in Vinicius ay ku soo qaadaan waliba Man United diyaar u yihiin in bangiyada ay u jabiyaan wiilka reer Brazil wiilka diidan in contract u saxiixo kooxda kubadda cagta Madrid markan Man United ayaa doonaysa inay soo xirigeliyaan waliba Man United waxay rabaan saxiix weyn inay xidigan ka dhigaan waa saxiix Blackbuster ninkan ayaan rabaa haatan in la soo xirigeliyo Madrid iyo Vinicius waliba isku dhageeyeen wax contract iyo haatan lama kala saxan xidigan uu diidan yahay inuu contract cusub u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sida daraadid Man United haatan waxay doonayaan saxiix weyn markan inay sameeyaan Vinicius Junior markan Man United ayaa u gacan taagaysa walow koox badan oo Premier League ka dhisno Liverpool ay qayb ka tahay xitaa Arsenal ku jirto Chelsea dhammaan la xirinayo laakiin Man United haatan waxa waayo kooxda markan diyaar u ah sida majalada ugu weyn Spain iyo kuwa kale ee England ka soo baxay haatan daawacayaan in ninkan ay soo qaadayaan Man United waxay taagayeen Vinicius anaga ayaa soo qaadanayna hadii Madrid oo wax contract u saxiixi waayo Madrid iyo Viniciusna haatan qari ay kala taageen xitaa 20 milyan ayaa loo ogol yahay xidigan in la siiyo isaguna lacag 30 milyan ayuu haatan weydiisanaya madaxda ugu sareysa Madrid oo Florentino Perez mar walba wuxuu ku leeyahay 30 milyan si aniga wax walba waan xalinaya isaguna waxa la leeyahay 20 milyan qaado sheekadana naga soo xir laakiinse sheekadu halka ay joogtaa United waxay doonayaan Vinicius markan lacag ka badan 150 milyan ilaa 210 milyan markan in ku qarash garayaan ay rabaan marka waan arki doonaa sheekooyinka wixii ka soo kordha hadii muuqaalka soo nala garay kan ka subscribe noo soo gudbaa